dawada kulanta wanaagsan kuna soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkan arrimaha siyaasadda ay garqaad media qodobada wararka caalamka aan ku soo qaadan doonana barnaamijkan kuna falanqeyn doona waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay weerar ka dhacay magaalada Gaarisa iyadoo dhimashada ay marayso sida la sheegay ilaa iyo 25 qof. Wasiirka dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmedna waxa uu sheegay in madaxweyne Trump haddii uu qabo dacwad inuu soo gudbiyo dacwad isla markaasna ay kala hadli doonaan arrinta ku aadan isaga. tirada diyaaradaha gantaalka lagu dhuftay kontonkii sano ee la soo dhaafay barnaamijkan sidoo kale ku soo qaadan doona iyadoo diyaaradii ugu dambeysay ahayd Ukrainian Airlines oo uu mareysay meel asaas uga fogeyn caasimadda dalka Iran ee Tehran. Ameerika dalka Qatarna waxa uu safar lama filaan ku tagay caasimadda dalkaas Iran ee Tehran iyadoo soo dhaweyn ballaaran halkaas loogu soo dhaweeyay xilliga xiisadda bariga dhexe ay cirka isku sii jiraan. Wasiirka gaashaandhigana dalka Ingiriiska waxa uu sheegay UK haddii dagaal galayso Mareykanka yaanan isku haleyn ayuu yiri. Sidaas waxa uu ka sheegay baarlamaanka dalka Britain. Qodobadaas waliba qodobo kale ayaan barnaamijkan daawada ku soo qaadan doonaa intaan wada ku jirno. Aanu ku bilownahay Britain ayaa isku diyaar garoonaysa inay dagaal gasho iyadoo aysan jirin buu yiri inaan isku haleyn karno dal ay xulafadiisa yihiin Mareykanka. Waxa sidaas ka diga xogayaha gaashaandhigga ee Britain Ben Wallace ayaana sheegay maamulka hogaamiye Trump oo dib ugu joogsanaya doorkooda caalamka ee dhanka hoggaanka ay isaga hurda ka toosisay. Wuxuuna intaasi ku daray in arrintan ay ku qasbayso UK in ay dib uga fikirto arrimaheeda gaashaandhigga iyo weliba ammaanka. hadalkiisa ayaana kusoo beegmaya xilli ay UK isku diyaarinayso inay fuliso isbedelkii ugu qotada dheeraa ee siyaasadda dhanka gaashaandhigga ee ammaanka ay samaysato tani intii uu dhammaaday dagaalkii qabowaa ee dunida. waxaan ka walaacsannahay haddii ay Mareykanka la noqdaan hoggaankooda ku wajahan arrimaha caalamka. Mr. West ayaa sidaasi ka sheegay wargeyska Sunday Times. arrintaasi waxay noqon doontaa mid aan caalamka u wanaagsaneyn anakana aan noo wanaagsaneyn ayuu intaasi ku daray. wasiirka gaashaandhigga ayaana xusay in loo baahan yahay in Britain ay arrintani qorshe ka yeelato. ninkan ayaana xusay in dib u eegista lagu sameynayo arrimaha gaashaandhigga ay noqon doonaan kuwo ku salaysan in UK aysan ku tiirsanaan Mareykanka marka ay timaado dhanka dagaalada mustaqbalka. sanooyinkii ugu dambeeyay waxaan aragnay Mareykanka oo ka baxay Suuriya iyo weliba hadalkii Trump ee ku wajahnaa Ciraaq ee ahaa in NATO ay door weyn ka qaataan arrimaha bariga dhexe. fikirka jirtay tan iyo 2010 ahaa in mar walba ay qayb ka noqon doono isbahaysiga Mareykanka imanka ma aha halkaan joogno iyo weliba dhankaan u socono ayuu intaasi ku daray. Mareykanka ayaana ku tiirsanahay marka ay timaado dhanka cirka surdoonka iyo weliba qalabka wax lagu baaro waa inaan qalabkeena ballaarina ayuu yiri Mr. Wayne. arrintan ayaana waxay walaac xooggan ka muujisay wadamada guud ee Yurub iyadoona Mareykanka uu Trump ka weeciyay arrimihiisa ku aadan dhanka NATO isagoona awoodihiisa ugu ballaarnaa ee dhanka militariga ee gudaha dalkaasi Mareykanka uu weeciyay dalalka bariga dhexe. arrintan ayaana waxay ku soo aadaysaa xilli labada dowladood ugu awoodda badan dunida ay maanta yihiin kuwa kala sii cararaya. arrintan ayaana waxay noqon doontaa mid culeyskeeda leh dhanka adduunka maadaama ay labada dowladood ay yihiin labada dowladood ugu sirdoonka badan caalamka iyo weliba dhanka militariga ay haddii ay kala saftaan ay noqon doonto in awoodda adduunka ay ku soo aadayso kaliya ama ku soo barbar shubanayso oo kaliya wadamada NATO ka mid ah. militariga dalka Turkiga ayaana waxa uu noqonayaa isagana mid awoodiisa ballaaran la soo bixi doona haddii labadan dal ay si kala hayaamaan ee ku aadan isbahaysigooda. Turkiga ayaana waxa uu inta badan isbahaysi leeyahay dalkaasi Russia isagoona inta badan ka soo gata dhanka hubka caalamiga ah ee dalkaasi. waxa uuna Turkiga hadda samaystay hubka difaaca ee loo yaqaano S4 kaas oo ka soo gatay dalkaasi Russia. Mareykanka ayaana hore uga digay inaysan Turkiga arrintaasi aysan ku soo ka dhawaaqi karin ama aysan soo gadan karin walow Erdogan uu arrintaasi dhagaha ka furaystay. waxayna arrintu hadda ku soo barbar shubanaysaa in caalamka wadamadii ugu waaweynaa 2020 ay si kala hayaamayaan taasi oo noqonaysa walaac dhankeeda iyadana. wasiirka dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu jawaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib markii uu dhawaan sheegay in Abiy Ahmed la siiyay bilada abaalmarinta nabadda ee Nobelka. Abiy ayaana sheegay inuusan wax wara ka haynin qaababka ay guddiga Nobelka ku soo xusheen shakhsiyaadka ay abaalmarinta guddoonsiinayaan. wasiirka Itoobiya wuxuu sidoo kale sheegay in dacwadda uu Trump kaga qabo abaalmarinta uu gudbin karo guddiga Nobelka ee fadhigooda iyo caasimadda Norway Oslo. Abiy ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu wariyaasha kula hadlay caasimadda
koonfur africa ee Pretoria bisha Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay. Abiy waxa uu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobelka kadib markii uu heshiis la gaaray dowladda Eritrea taasoo lagu soo afjaray dagaaladii ka taagnaa xuduudda labada dowladood muddo. Madaxweyne Trump ayaana dadweyne fagaaro kula hadlayay waxa uu sheegay inuu heli lahaa biladda Nobelka ee la guddoonsiiyey Abiy. inta uusan Trump magac dhabin qofkii ku guuleystay biladda Nobelka ama dal, balse waxa uu si cad inuu hadalka ku waday Abiy waana hogaamiyaha kaliya ah ee ku guuleystay abaalmarinta Nobelka tan iyo sanadkii 2016 xilligaas oo Trump la doortay. Madaxweyne Trump ayaana waxa uu ku maadeystay nabadda abaalmarinta la siiyey wasaare Abiy Ahmed oo uu sheegay in dal uu isagu nabad ka dhigay isla markaasna ilaaliyo la siiyey shakhsiyaad oo hogaamiyaha nabadda, taasoo sheegay inuu isagu u qalmo. dhanka kalena booliiska Kenya ayaa baadigoob maleeshiyaad la rumaysan yahay in al-shabaab ay ka tirsan yihiin kuwaasoo 3 macalin ku dilay deegaanka Kamude ee dhinaca magaalada Gaarisa kadib markii weerarka ay ka fuliyeen halkaasi saaka subaxnimadii hore. wararka waxay sidoo kale sheegayaan in macalin kale la laayahay isla markaasna loo maleynayo inay afduubteen. al-shabaab ayaa ilaa 6 weerar ka geystay gudaha Kenya 15 shantii toddobaad ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ku dhintay in ka badan 25 qof. wararka ugu dambeeyay kooxda waxay ku tilmaameysadeen anteenooyinka isgaarsiinta iyo weliba saldhigyada booliiska. weerarkan ayaana imaanaya xilli dowladda Ingiriiska ay muwaadiniinteeda uga digtay inay safar ku tagaan qaar ka mid ah deegaanada dhacada xadka Kenya iyo weliba Soomaaliya, waxaana ka mid ah Gaarisa iyo weliba Lamu, halkaasoo ururka al-shabaab la sheegayo in muddooyinka ugu dambeysayba ay awood ku lahaayeen isla markaasna ay weerar ka geysan kareen, taasoo ay sababtay baa la sheegayaa in feejignaan caalami ah la geliyo booliiska gudaha dalkaasi ee Kenya. dhanka kalena amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa maanta waxa uu socdaal lama filaan ku tagay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran si ay uga wada hadla ula yeesho waa la yiri mas'uuliyiinta sarsare ee dalkaas oo ka mid yahay madaxweynaha Xasan Ruuxaani. booqashada maanta Axad ayaa timid xilli xiisad kacsanaana ay ka taagan tahay khaliijka weliba bariga dhexe kadib dilkii Mareykanka uu ku dilay Baghdadi taliyihii ugu sareeyay ee ciidamada kacaanka Iran ee Qasim Suleimani iyo weliba gantaalo argoosi ah oo Iran ku beegsatay bartilmaameedka Mareykanka ee Ciraaq. wakaaladda wararka ee Qatar ee QNA waxay sheegtay in wada hadalladu diiradda saari doonaan xiriirka labada geesoodka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo weliba dariiqooyinka kor loogu qaadayo loona xoojinayo, iyo sidoo kale horumarka ugu dambeeyay ee gobolka iyo weliba arrimaha gobolka ee arrimaha caalamiga ee dhinaca danaha labada dhinac. Qatar oo aad ugu dhow Mareykanka laakiin sidoo kale xiriir adag la leh Iran oo ay la wadaagto gaaska ugu badan adduunka ayaa ku baaqday in si nabad ah loo xaliyo xiisadda gobolka. booqashada amiirka Qatar ayaana noqonaysa tii ugu horeysay hogaamiyada dal uu ku tagay Iran tan markii la dilay Qasim Suleimani 3 bishii Janaayo. General Qasim waxa uu helinaya wafdi rasmi ah oo safarkiisii General Tamimi waxa uu helinaya wafdigiisa safarkii ugu horeeyay uu tagay Iran tan markii uu xilka qabtay sanadkii 2013. waxaana sidoo kale sawiro laga soo qaaday muujinaya amiirka oo la kulmay madaxweyne wasaaraha dalkaas Iran Xasan Ruuxaani, iyadoona ka wada hadli doonaan xiriirka labada dowladood iyo weliba arrimo kale ku aadan labada dhinac. Qatar ayaana la sheegayaa sababta ay arrintan u soo dejinayso inay tahay arrinta ku aadan dhoofinta saliidda dabiiciga iyo weliba tangaaska, taasoo ah in haddii Iran ay bartilmaameysato maraakiibyada marinka Humus ay noqon doonto mid dhabarjab ku noqon doonto wadamada khaliijka ugu horeyso dalkaas Qatar oo iyadu ay dhoofiso maraakiibteedana ay maraan marinkaas, waxayna arrintani noqonaysaa baa la yiri mid dhabarjab xoogan oo dhanka dhaqaalaha dalkaas Qatar ay wajihi doonto. balse Qatar ayaa waxa ay ciyaareysaa kaalinteeda aadka ugu weyn ee bariga dhexe, waxa ayna arrintani ka wadaa sidii iskugu soo dhawaan lahayd Iran iyo Mareykanka xilli Mareykanka ciidamadiisa ugu badan ee bariga dhexe ay joogaan dalkaas Qatar. ugu dambeyn daawadayaal, dowladda Iran ayaa sabtidii lasoo dhaafay sheegtay in ciidankeeda ay si kama u soo rideen diyaaradda Ukraine Airlines oo kusii jeeday magaalada Kyiv taasoo ku dhacday duleedka caasimadda Tehran. diyaaraddan oo gantaal ku dhacday 8 January 2020 waxaa ku dhintay dhammaanba dadkii saarnaa oo gaaray 176 qof. sheegashada Iran ayaana timid maalin kadib markii madaxda hay'adaha duulimaadka rayidka ee Iran uu beeniyay in diyaaraddaasi uu soo riday gantaal ay ciidanka Iran ku tuureen. diyaaradda ayaana dhacday saacad kadib markii Iran ay duqeynaysay saldhigyada Mareykanka ku leeyahay dalkaas Ciraaq, weeraradaas oo ay sheegeen in ay uga argudeen dilka Qasim Suleimani oo madax ka ahaa ciidamadaasi Qudus. waxaanu sidoo kale barnaamijkan halkan iskugu soo gudbin doonaa
kontonkii diyaaradood ama kontonkii gantaal ee lagu soo riday kontonkii sano ugu dambeysay diyaaradood 17 bishii July 2024 diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Malaysian Airlines oo sumadeeda ahayd MH17 ayaa lagu soo riday dhulka uu mucaaradku haystay bariga dalkaasi Ukraine waxaana xilligaasi uu ku sii jeeday caasimadda Malaysia Kuala Lumpur waxaana diyaaradaasi ka duushay magaalada Amsterdam ee dalka Holland dhammaanba dadkii saarnaa diyaaradaas ay tiradooda gaaraysay ilaa 298 qof ayaa dhintay waxaana dadkii dhintay kamid ahaa ilaa 190 qof u dhashay dalkaasi Holland Mars 2017 diyaarad rakaab oo ay leedahay shirkadda duulimaadida ee dalkaasi Belarus ayaa la soo riday wax yar kadib markii ay ka duushay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya diyaaradaas waxaa ku dhintay 11 qof waxaana saarnaa injineer u dhashay dalkaasi Belarus oo Muqdisho u tagay si ay cilad ugu bixiyaan diyaarad kale oo iyaduna gantaal lagu dhuftay 2 toddobaad ka hor xilligaasi October 4 2021 qof oo inta badan ahaa muwaadiniin u dhashay Israa'iil ayaa la dilay kadib markii diyaarad ay ku safraayeen oo lagu magacaabo Siberia Airlines oo ka duushay magaalada Tel Aviv oo hawada ku qaraxday xilli ay mareysay badda madow waxaana diyaaradaasi ku sii jeeday magaaladaasi Novosibirsk toddobaad kadib xukuumadda Kiev waxay sheegtay in si khaldan ugu dhacday gantaal ay rideen ciidamada dalkaasi Ukraine diyaaradan waxay mareysay meel 300 oo kiiloomitir u jirta xeebaha dalkaasi Crimea Luulyo 1988 diyaarad nooceedu ahaa Airbus R300 oo ay lahayd Iran kana duushay magaalada Bandar Abbas ee dalka Iran ayaa ku dhacday kadib markii uu ku dhacday gantaal ay rideen ciidamada Mareykanka oo xilligaasi ku sugnaa marinka Hormuz waxayna diyaaradaasi ku sii jeeday Dubai ciidamada Mareykanka ayaana muudinay diyaaradaasi ahayd diyaarad gantaal waxayna ku dhintay dhammaanba dadkii saarnaa u gaaray 298 qof September 1983 diyaarad nooceedu yahay Boeing 747 oo ay lahayd shirkadda duulimaadida ee Korean Airlines ayaa waxaa soo riday diyaarad dagaal oo ay lahaayeen midowgii Sofiyeeti diyaaradan waxaa ku dhacday jasiiradda Sakhalin waxaana ku dhintay dhammaanba dadkii saarnaa oo tiradooda gaaraysay 269 qof saraakiisha midowga Sofiyeet oo 5 cisho kadib qirtay inay soo rideen diyaaradaas February 2021 diyaarad duulimaad oo ay lahayd